waxaweye sidii go'aanku dawladdu ku soo baxay 1 September wixii ka dambeeya waxaweyaan baasaboor lama qofku ma heli doono aan aqoonsi lahayn insha Allah hadii lahayn safaaradaha Soomaaliya dibadda ku leeyahay marka midin kala horeeyaan kuwa ugu horeeyo laga bilaabi doono in ID-ga ama national ID-ga NIRA laga qaato waxaweyaan hadda waxa safaaradaha tababarka loo furay waa ilaa waxay gaarayaan 30 sarkaal oo 30 safaarado ka shaqeynaya weeye ilaa maaragtay oo kala duwan waxaana rajaynayaa inta dhiman dhowr safaaradood ayaa dhiman oo baasaboorka laga bixiyo inaan iyadana degdeg aan uga howlgalno oo aan tababarka u siino insha Allah hadii lahayn hal isweydiin karaa maadaama dalkii qayb ka mid ah oo badanaysan weli dadka gaarin inaad dibadda hadda u goodaan nafteeda gudaha inaad ka dhamaataan Soomaaliya muwaadiniintu meel kasta ay joogaan isku xuquuq weeye marka waxaan rabnaa inaan isku si u gaarno sida aan uga shaqeynano gudaha jooga in adeega u siino ayaa waxaan uga shaqeynaynaa maadaama adeegyadii la isku xiray oo adeega ugu muhiimsan uu yahay adeega maaragtay adeegyada ugu muhiimsan ay ka mid yihiin isku xirka baasaboorka iyo bangiyada iyo dhammaan dadkaasina adeegyada dawliga ay u baahan yihiin waxaan rajaynaynaa inaan u baahan yihiin inaan isku si ugu adeegno dadka muwaadiniinta gudaha iyo dibadda jooga